يعني horta adiga kelidaada ma gadan lahayd horta baahi doonta hadday ku hayso kelidaada ma gadan lahayd بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحنا جنالك أحمد منير ونشيك وإيدين سلامة ولا الله قلبي هذا الفيديو كان كيشو وهورين انت هذا الفيديو قاعدن داورين ولا waxaan ka codsanayaa inaad like share comment subscribe inta ba aad saarto like de hadaad ka hesho subscribe saar si aad mar walba u noqoto daawadaha ugu horeeya daawanaya videogeena waa ku maasantaa walaal maanta maxaan ka hadli rabnaa video oo hadaad aragto laga yaabo hadaad maqasho inaad horay aad u maqashay aad video kale ka daawatay waa laga yaabaa laakiin dhacdo la yaab leh waa qof dhan bini aadan oo ka hadlaysa xubnaha bini aadanka inay iibsato oo waliba ay ka iibsato dalal kala shisheeye ah ama dad kale oo ajnabi ah inay ka iibsato ay waliba ay ku sii caawinaysaa ay waliba ku sii ku boogaadin gelinaysaa dadka walaalaheeda ee Soomaaliyeed fahanti waxaan jeclahay in maanta aan ka hadlo videogan intaan video ka hadlin min awal waxaan jeclaan lahaa in ay la daawataan idinkana daawasho waxaan videogan daawada kadib aan wada hadli doonaa tamam ahaan in qofka uu bicini la chachumo ama la afduubto ama wax kale talugso qof walba isagoo miirkiisa iyo wax walba taamihiin baxumnihiisa laga gadanayaa wuxuu ku daboolayaa baahidiisa mid kasta ay taaba lacagtaas ku daboolaya marka abay dhimanahan waxaan wax caalamka ka jira wax soo jireena waligan baan ka soo shaqaysan jirnay aniga laftirkeyga xitaa markii ugu horeysay kaliban iibsaday alxamdulillah hadda waxiga maqan ma jiro waan ku socdaa waan ku dhalaa alxamdulillah wixii aan u baahnaana waan helay way ii fududaadeen maaragtay waxay rabtaa inay sheegto inay ummadda dhan ay ka dhaadhiciso in kalidiisa horta adiga kelidaada ma gadan lahayd horta baahi doonta hadday ku hayso kelidaada ma gadan lahayd aan uma maleynaa inaa kelidaada bini aadanna waa tahay daarta waa gadanaya soomaalina waa deerawana waa gadanayaan waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta videogan oo aan idin tusayay weli wax kala dhiman dad kale waxaa jira oo weliba qoftaan la soo xiriiro oo la sii sheekaysto jira ma fahanteen oo idinku xiriirna waa arkaysaan idinkana ila daawada halahan yar iyadana gabadhan ما شاء الله ولا سوون أحسن ويا ما قرأتي إن شاء الله ما كسر قيب قرينا وأنا إيماننا حرمها حقي اللي وصل جاي كره حقي بكويالان قبل ذي بكويالان إن شاء الله أنا بس سوا هاي خوفا وعنو تلفون كلا هلا بلا حريري هاي ده انتين كالسو حريرنا ما شاء الله خوفي عنها تهاي انتين كالسو حريرنا انتين نقولسو هذاكنا خوفا بديارو انو كريسة قطو كريسة قطو يا لكن سومالي وحواي مروا بباهي كما بحضر حقيقة مركان كهذا صوبته حدي دركسنتا لكن انا باهي لما هيسي انا باهي اسكت ديجينو أصحابي حقيقة مركان كهذا انا باهي اسكت ديجينو ان سومالي wax walba waa haysana adduumaadka waa la tartami karnaa laakiin dadkeena naciila dadkeena xaasidiin waxaaba ka sii daran marka islaantaana ummadii wacyi gelinaysa ku dhahaysay warkiliyaalkiina gata xibnihiina gata iwada videogan daawada bal abayaha xarumo waan leenahay gobol kasta oo Puntland kamidana waan ku leenahay gobollo wadan baan ku leenahay sida gobollada Puntland oo kale Soomaaliland oo kale koonfur galbeed oo kale Jubbaland Soomaaliya waxaan ka wada calaashan Soomaaliya ka wada federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay dibay baan ku leenahay waa ku leenahay adoo caalamka oo dhan waan ku leenahay sida Ethiopia meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adag noogu fududaadaan waa Ethiopia ilaa Nairobi oo kale soo dhaqaatiir caalamka waxa jooga khatara iyagoo kale badan operationada waa lagu galaa kama taqaanal laga yaabo in Soomaaliya dib
ay mid qalan kaaga sheekeyn karo kaliya maahan ama beerka ama xubnaha kale oo qofka bini'aadamka in xitaa qofka dumarka markuu haysto ilmo ku filan ilaa iyo dii adu isleey alxamdulillah maanta ilmo ku filan waa haysataa xitaa makaanka uu iibsan kara abay waxaan wax dhibo maahan maadaama ilmo dhasho waxa laga yaabaa ilmaheeda inaysan nolol fiican haysan ama wax badan aysan u awoodi karin haddii ay makaankeeda u iibso waa 200,000 dollar qofka hadduu qof dumar yahay ilmo galaankeeda 200,000 dollar aa loo jooga 200,000 dollar yaa diyaar u ah ninka diyaar u ah subscribe maxaa la commentiga ha ka soo bixiyo malena comment laan ay u dhacdo malena naag ilmaheeda ilmagalkeeda gadeysata malahan omaad subhanallah ilaahay allah min jana wali waxaano dhiman khayrta video kala jiro oo wali gabadhan la ka hadlayso aan daawano. There is an epidemic in the United States of America in the abduction of our children. Many of our children are being abducted and brought into this sex trafficking tragedy. Our children are being taken off school buses. They're being picked up after Girl Scouts. They're being snatched away in our college campuses. And I know that many times we think parents are paranoid, but parents, this is the time to become more aware, our eyes more opened, and children and young adults and college students and young men and especially young women, somebody needs to know where you are at all times. This is becoming very, very dangerous. One of our members had an experience with this on last week. Another member. ay jujub ma jiray dhaysi jujub waa jira saan oo kale mid dad wal afduumanaya ilmo yar yar oo aad iyo aad u yar yar waay waxa lagu sameeynaya wal afduuna baawra gadaal lagu ridina okay maxaano dhiman intee la geeyaa marka meesha la geeyo ina ogaana Soomaa ilmaas waxa la geeyaa arag. But not all great givers crave the spotlight. Last night at Massachusetts General Hospital in Boston, an anonymous individual gave an unprecedented donation of 200 human kidneys. The secret benefactor delivered his gift a few minutes before 4 a.m. this morning, as seen here in the security camera footage. It's an amazing gift. The kidneys are so fresh, they clearly must have been removed within the last 24 hours. The philanthropist sought no fanfare and left without requesting so much as a thank you. Whoever did this is obviously very skilled with a knife, and it looked to me like they've done this before, maybe hundreds, thousands of times. We are just incredibly grateful. The hospital's medical technicians have been working overtime to sort through the massive donation. They left a note in the bag that indicated they might be making a bag that Igara la soo qalay koofidisa lagu soo hilmaamay meesha baandaad koofidisa aab lagu soo galoway asxaabta dhamaano idin salaamay waxa la leeyahay dadkaan oo kale adduunka ku nool yihiin ilmihiina ciyaalkiina gabdhiina alaalsada meel walba ay aadayaan ogaada ciyaalkiina inay meel ku ogaataan aad u fiican tahay dadkaan oo kale adduunyada ku nool oo xaasid ah oo ummadda masaakiinta muslimiinta walaalaha aan waxba u ogoleen حتى مسلم كريس maahan مسلم iyo gaal inta wax ma ogola dadkan oo kale xaasid waa danahooda kaliya ka fikiraan iyo lacagta marka asxaabe waxa idin leeyahay tan iyo nabadgeliyo markaan iyo mar kale kulanti dambe oo aad iyo aad u xiiso badan waxa idin leeyahay waa saaxiibkiin Axmed Muniir oo sheeg oo idin like share comment subscribe wa salaam.